galab wanaagsan dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee idaacadda VOA. wararka magaalada muqdisho ka imanaya ayaa sheegaya in ciidamo ay baaritaan ku sameeyeen guriga uu magaalada muqdisho ka degan yahay senatar cabdi cawaale qaybdiid oo ka mid a xubnaha aqalka sare ee soomaaliya islamarkaana hore usoo noqday taliyaha ciidanka booliska ee soomaaliya. wariyaha v o eda jamaal axmed cismaan ayaa khadka telefoonka kula xidhiidhay islamarkaana wax ka weydiiyey sida ay wax u dhaceen. ismaal hadda gurigaygiibaa saakay maanta goore kowdii iyo 10 daqiiqo ama 20 daqiiqo ayaa ciidamo hubaysan oo baabuur technica wata ayaa soo weeraray albaabkii hore iyo ganteelkii hore gurigay baabuur kusoo dhifteen oo soo jediyeen gudihii bay galeen. gudihii markay galeenna waxay galeen dadkii meesha jooga waardiyaha inay horaa gurigii bay galeen, xaaskii carruurtii bay u galeen. meeshii markay gudihii galeenna baaris bay galeen si maaragtay runtii albaabadii ay jajabiyeen muxuu hadda alaabta raajooyinkii iyo gurigii iyo wax alla wixii un guriga ku dhex jiray ay dabagediyeen ayay baareen. marka hadda baaris taleefanadiina waa ka qaateen xaaska iyo carruurta iyo dadkii. marka meesha xoogaa terrorist dadkaas waxaa ku dhacay buuqaas baa maaragtay dhibaatadaasaa meesha ka dhacday. hadda anigu shaqadan ku maqlnaa waxaan jiray baarlamaanka xaggiisaan jiray, shir baa baarlamaanku lahaa guddiga joogtadaan jiray. markii hade intaana guriga soo gaarin baan waxaan taleefon ka helay, waxay soo wacay taliyaha ciidanka miisa ee gobolka Banaadir Saadiq ayaa soo wacay. wuxuu ii sheegay gurigayga inay ciidamada gala inay ahaayeen ciidamo dawladda imaaraadku ay leedahay, iyagana maaragtay dhibaatadaasna ayagaa geystay. wixii shaqaa ay ka lahaayeenna waa isaga baxeen. wixii un qoryo iyo bastoolad iyo wixii un kale wixii ay hadda la qaadan karana waa laga qaatay. maaqaana hadde ilaa hadda anigu guriga un meydiyada unbaa gashay, aniga weli ma gelin. alla baaraan idhi bal guriga meesha waxaa ka jira. hadda intaasaa dhacday. senator, maxay kula tahay sababta ka dambaysa in askartani ay soo galaan xarunta gurigaaga ee magaalada muqdisho dabadeedna howlgalkan ay ka sameeyaan? walaal horta marka ugu horeysa anigu ciidan anigu waxaan ahay nin xasaanad baan leeyahay. gurigayga lama soo geli karo, lamana baari karo, anigana lama baari karo. marka waxa weeye waxay tahay waa sharci darro in lasoo galaa, waa sharci darro ahayd. midda labaad waxaa sharci darro ah maaragtay ciidan aan dawladdii Soomaaliyeed ka tirsanayn. ayadana hadde annaga dawladda Soomaaliyeed meel lagu qabsado ma aan ogeyn. ciidan dawladdii Soomaaliyeed oo aan ka tirsanayn inay aniga i baaraan, hadde waxa weeye see ku yimaadeen way gurigayga ma imaaraad baa dalka haysta. arrintaas waxaan rabaa inaan u daayo baaris in ay dhacdo oo ciidamada nabad sugidda militariga kulli way yimaadeen. ayagaana hadda ka war dhowraynaa ciidankani la sheegaya saas inuu yahay iyo in arrintu ay wejsikal tahay. marka ma raba inaan hor dhaco baaristan aan ka hor dhaco. senator, laakiin waxaa la isweydiin karaa inkastoo aan anagu laf ahaanteenu loo sheegay in ciidankaasi imaaraadka soo tababaray dawladda hoos tagaan, marka taa laga gudbo wax khasaare kale oo meesha ka dhashay ma jiraan oo nafeed ama weerarkaas? wax hadda dhimasho ma jirto. nimanka waardiyaha ahaabaa 2 nin la dhaawacay. ninkii lagu soo dhiftay albaabka lagu soo jebiyey waa dhaawac. nin kalena way maaragtay way xoogaa waa la inuu ku adkaysto waa yani waa la jugeeyey, laakiin nafna ma jirin. xoogaa waa la jugjugeeyey. lama rabo inaan balaayo kale anigu sheego. xaaskana runtii guriga gelidiisiina si ka baxsan bini-aadnimada iyo dhaqanka islaamka in loo galo guryahoodii maaragtay masquulihii lagu jebiyay ayagoo ku jira. xoogaa arrintaasi wax diinta islaamka iyo shareecada iyo sharciga iyo xuquuqda dalkaas waan ku leeyahay iyo muwaadinimada intaba waa ka horjeedaa. marka intaa weeye. laakiin hadda eedaa dhacday ciddaasaa wade ciddaasaa ka dambaysa ku oramayo. hadda umahadsantahay. marka laga soo tago taliyaha nisa ee gobolka Banaadir aad sheegtay inuu kula soo xiriiray, yaa kale oo kula soo xiriiray dhacdadani kadib? waxaa ila soo xiriiray taliyihii nabad sugidda ee gobolka Banaadir. hadda markii awal talaadii lagu sheegay haddana waa yimid. waxaa kaloo yimid taliyaha xoogga dalka waa yimid. labadoodii baa israacay. waxay leeyihiin arrintan baan hubinaynaa. waa la gartay
waa laga hayaa sawirka ciidankii iyo 4 baabuur bay ahaayeen niman waxay ahaayeen qarsoon ma garanaysaa marka sidaas marka wixii jiraaba baaristaasay kusoo bixi doonaa insha allah. waxaaba yaraatee tuhuna oo aad qabtid oo aad is leedahay waa sababta keentay in weerarkani lagu geysto ma jira? waa sababta ay tahay waa la ogaan doonaa. anigu hadda kumeli sababtaasi haddaan sababta ogahayba ma waxaan isleeyahay waxaan waa saanba wax uma dhaceen laakiin sidaan ogahay maaha. taliyihii booliska ayaad soo noqotay oo xilal kala gedisan ayaa soo qabatay oo ciidanka in badan ayaad ku jirtay. marka sharciyan marka la fiiriyo in weerar noocan oo kale ay dhacaan oo ciidan dowladeed ay weeraradani geystaan, sharciyad baa loo maraa. maxay kula tahay sharciyadda loo soo maray? walaalow arrintan waxa weeye mid nabadgelyada iyo xasiloonida iyo deganaanta mid waxyeelo ku ah iyo muxuu ahayde guud ahaan maamulka iyo dawladdaba waxay ku tahay runtii mid meel ka dhac ku ah weeye. laakiin arrintaasi cidda mas-uulka ka ah na waxaan warsaday dawladda weydiistay in la keeno cidda arrintaas mas-uulka ka ahayd amarkaas bixisay. inta aan hubinaynana arrintaasi ma raba inaan cid gaare aniga maaragtay inaan u gudbo. kaasi waxa waa senator cabdi cawaale qaybdiid. me and my sabi Mohammed Tariq ismaqfosh dhammaan reer Sweden taageeraygu badan Sweden ay joogaan Tariq walanta joogaan oo isku darsanayaan.